السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال aad baan islaamaya soo dhawaada oo ku soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan. runtii haddii ay maalin idin tahay maalin wanaagsan, haddii ay habeen idin tahay habeen wanaagsan. intaa kadib runtii maanta waxaan dhiganaynaa cashir ka mid ah cashiradeenii Englishka ahaa ee taxanaha inoo ahaa. cashirkan aan idin wada maanta waa mid ka duwan cashiradii aynu hore u soo qaadanay. runtii maanta darsigeena wuxuu ku saabsan yahay sida title-kaad ku soo aragteenba baro kelmadaha caadiga ah ee Englishka. haddaba markaan idin leeyahay baro kelmadaha caadiga ah ee Englishka, macnaheedu maaha qofku caay, qofku aflagaaday, qof walaalka ama walaasha ama islaam ama bilaadanba ah ku caay oo ku maag maaha. ujeedada aan idin barayo kelmadaha caadiga ah waxay tahay in aad fahmi kartaan, inaad isticmaashaan oo caadiga aad ku bilowdaan oo idinka aad bilowdaan maaha baarbooska. ujeedadu taas maaha. faa'iidada aad baranaysaan kelmadaha noocan oo kale ah waxa weeye dhowr faa'iido way leedahay oo ay ka mid tahay kow, haddii adiga uu damco inuu qof kugu cayo luqadda Englishka kale, waxaa tahay markaa qof awood u leh inuu fahmo kelmadaha uu isticmaalay ee caadiga ah, isla mar ahaantaana u jawaabi kara qofka. sidoo kale haddii qof walaalka ama walaasha ama kula islaam ah uu qof kale luqadda Englishka ku cayo, qofka kalena uusan fahmayn la caayay, waxaa tahay qof awood u leh inuu ka celiyo qofka kale ee la maagay. xadiis baa jira odhanaya qofkii barta luqad qoom kale wuxuu ka nabad galaa sharkooda. markaa waad fahanteen ayaan jeclahay. haddaba waxa weeye inaan hadal kusii teegaalin ee isla socod wacan cashirkeena aynu iska bilaabana. let's go. intaynan bilaabin kelmadahaas waxaa muhiim ah dhowr kelmadood inaad sii fahantaan, kuwaas oo kale ah bad words haddii la yidhaahdo, iyo haddii la yidhaahdo swear words, curse words, dirty words, intuba waa isku macno. bad words, swear words, curse words, dirty words, intuba waa isku macno oo waxay ka turjumayaan oo micnahooda ay yihiin kelmadaha xunxun. okay, kelmadda swear words marka sida la yidhaahdo aad aragtid swear words waa kelmada xunxun ee aflagaadada ee caayda. haddaba kelmadda swear laba macno ayaa leedahay. macnaha koowaad waa afxumo, caay. macnaha labaad ay leedahay waxa weeye dhaarasho. tusaale ahaan haddii aad tirahdid I swear by Allah I didn't do it, macnaheedu waxay noqonaysaa Allah baan ku dhaartay anigu maan samaynin. I swear by Allah I didn't do it. marka swear words haddii aad aragtina labadaas oo saa isku xidhan. swear words waa kelmada xunxun ee caayda, waxaas ayaa loola jeedaa. marka afartan waa isku macno. haddaba aynu tusaale u keeno oo sentence English ah aynu gelino mid ka mid ah. ka soo qaad walaalka ama saaxiibka baa ku yidhi bro stop using swear words because bad people use it all the time and you're not a bad one, so think about your dignity. oo micnaheeda noqonaysaa bro stop using swear words, walaal jooji kelmada xun isticmaalaysid because maxaa yeelay bad people use it all the time, sababtoo ah dadka xunxun ayaa isticmaala mar walba. all the time and you are not bad one, adna ma tihid qof xun. so haddaba think about your dignity, ka fikir sharaftaada. bro stop using swear words because bad people use it all the time and you're not a bad one, so think about your dignity. waxaa jirta kelmad kaloo ah insult oo ah caayid, inaad qof caydid oo aad aflagaadisid. tusaale ahaan you can't insult me man, all in all listen insult me if you can. oo micnaheeda noqonaysa you can't insult me man, niyo aniga ma caayi kartid. all in all hadal iyo dhammaan listen dhegeyso
insult me if you can. Icay haddii aad awoodid. You can't insult me man. All in all, listen. Insult me if you can. fadlan kelmadahan ha u isticmaalin si khaldan oo qof walaalka ama kula islaam ah ha ku dhibin. Never. Kaliya u fahan just educational purpose. haddaba intaas waynu isla soo fahnay aan jeclahay kelmadaha kale aynu toos u gudagalno. kelimada koowaad waa dhowr kelmadood oo isku wada macno ah oo isku soo dhadhow oo isku qaab loo isticmaalo, kuwaasoo kale ah nice iyo kelimada kale ah foo. l xarafka l ee ugu dambeeya kelimada foo, l kuma dhawaaqisid oo ma gaaraysid haddii aad rabtid inaad luqadda si fast ah aad uga hadashid. foo baad ka soo gaabsanaysaa. foo. kelimada ku xigta idiot. kelimada ku sii xigta silly. intuba waa isku macno oo waxay ka turjumayaan nacas, qof xun iyo wax xun ayay ka turjumayaan. kelimada nice, qofka nacaska waa la nice. ta ku xigta foo idina sidoo kale waa nacaska. idiot sidoo kale, silly sidoo kale. haddaba kelimada koowaad nice sidoo kale ashyaada waad u isticmaali kartaa. tusaale ahaan waxaad dhihi kartaa oh man that car is nice. alaniyo gaariga wuu xun yahay. oh man that car is nice. marka marna qof baad u adeegsan kartaa oo waxaad dhihi kartaa listen get this nice out of here man. dhegeyso niyo nacaskan ka kaxay meesha. get this nice out of here man. marka kelimadaha kale dhan iyagana waa la macno saan idin sheegay. silly, idiot, fool, nice, they are all same. fadlan kelmadahan ha u isticmaalin si khaldan oo qof walaalka ama kula islaam ah ha ku dhibin. Never. Kaliya u fahan just educational purpose. kelimada labaad ee inoogu xigtana waa dump. kelimada dump waxa weeye micnaheeda qofka maarta nacaska ee dhaadhaanka ee aynu nidhaahno dhaandhaan. qofkaas waa dhaandhaan oo hadalka aan aqoonin, kaas ayaa la yidhahdaa dump. kelimada saddexaad waa prostitute. prostitute kelimadan micnaheeda waxa weeye gabadha jirkeeda ka ganacsata, taasaa loo yaqaanaa prostitute. laakiin inagu waxaa shaqo kuma lihin oo beri baynu ka nahay alxamdulilah, oo dad islaam ah ayaynu nahay. marka prostitute waa gabadha jirkeeda ka ganacsata. kelimada afaraad ee inoogu xigtana waa ho. waxaa loogu dhawaaqayaa ho. hu loogu dhawaaqi maayo ee waa ho. kelimadan macnaheedu waxa weeye gabdhaha tumashada yaqaana, gabadha tumashada taqaana ee qof kasta la seexata, gabadhaas ayaa loo yaqaanaa hor. kelimada shanaad waa faggot. kelimada faggot micnaheedu waxa weeye ragga isu taga ayaa loo yaqaanaa faggot. nin iyo nin baa isu tagaya oo isla seexanaya, marka kuwaasa loo yaqaanaa faggot. waa halka la yidhaahdo khaniis, micnaheedu waa khaniis, faggot. marka sidoo kale waxaa jirtaa kelmad kaloo kelmadan la macno ah taasoo ah gay. kelmada gay micnaheedu waa khaniis, ninka kale u taga ee la tunta, walciyaadu billaah, waxaas gaalada isticmaasha. sidoo kale kelmada faggot waa la macno, marka faggot iyo gay waxay leeyihiin same meaning. haddaba kelmada lixaad ee inoogu xigta waa son of a bitch. son of a bitch micnaheedu waxay noqonaysaa eeyad baa ku dhashay. haddaba kelmada toddobaad ee inoogu xigta waa son of a pig. kelmada pig waxaa la yaqaanaa doofaarka. haddii la yidhaahdo son of a pig micnaheedu maxay? doofaar baa ku dhashay camal. haddaba aynu gudubno kelimada sideedaad ee inoogu dambeysa. waa laba kelmadood oo isku macno ah, waa hor. kelimada hore ee w-da laguma dhawaaqayo oo waxaa la odhanayaa hor. sidoo kale waxaa la macnaa
slut haddaba labadan kelmadood waxay noqonayaan micnahooda iyagana waxaa loo yaqaanaa hablaha gogoldhaafka iyo tumashada waxaa yaqaana ayaa loo yaqaanaa hor slut. fadlan kelmadahan ha u isticmaalin si khaldan oo qof walaalka ama kula islaam ah ha ku dhibin. never, keliya u fahan, just educational purpose. halkaas ayuu inoogu egyahay insha allah, wuuna inoo sii socon doonaan oo kelmadahan swear wordska aad bay fara badan yihiin. marka anigana waxaan idin soo diyaarin doonaa oo aan idin soo gelin doonaa channelka kuwa daily use-ka ah ee maalin kasta la isticmaalo, maalin kasta dadka isku maagaan ama isku canaantaan si aad u fahantaan waxa maanta la isticmaalayo. laakiin maaha inaad waqti kulmisaan wax beri hore qadiimi ahaan jiray la isticmaali jiray. muhiimad waxa weeye waa what's going on now, maxaa hadda dhacaya, maxaa hadda soconaya. marka insha allah part 2 waa videoga xiga, part 3, part 4 ilaa maasha allah runtii waan wadi doonaa. fadlan haddii channelkaad ku cusub tahay oo weli aadan subscribe saarin, fadlan subscribe saar oo dambalada furo si cashir walba markaan soo dhigo aad u noqotid daawadaha ugu horeeya arka, daawadana kana faa'iidaysta. ta kale videogan haddii aad ka heshay oo aad ka faa'iiday wax at least even one word xataa ahaato, like saar. waa anigoo idin leh assalaamu calaykum. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.